Bollywoodka waxaa ka jira sheekooyin xiiso leh, balse hal shay oo had iyo jeer daawadayaasha ay aad u xiiseeyaan ayaa ah arrimaha jacaylka ku saabsan ee xiddigaha shirkadda Bollywood. Inkastoo xiddigaha qaar ay awoodeen inay helaan dhammaadka noloshooda farxadda leh ee jacayl, haddana waxaa jira jilayaal dhowr ah oo xiriirkoodu ku dhammaado in warbixino laga qoro. Sidaas darteed, waxaan idinla wadaagayaa jacayl saddex geesood ah ee dhex maray xiddigaha Bollywoodka. Aan ku bilaabo Richa, Amitabh Bachchan, Jaya Bachchan. Amitabh iyo Richa jacaylkoodu wuxuu kasoo bilaabmay filimkoodii Do Anjani 1976, waxayna ahaayeen kuwo isku soo dhawaada. Mar kale ayay shaashada isla wadaageen iyagoo isla keenay filimkii Silsila 1981. Inkastoo Amitabh ama Cali Dheere uu guursaday Jaya, waxaa la isla dhex maray inuu si qarsoodi ah xiddigani uu xiriir ula lahaa, maadaama Richa ay la timid sinduur iyo midgarasuud arooskii Rishi Kapoor iyo Neetu Sen, balse labadan ayaa kala go'een markii ay ogaadeen inaysan mustaqbal wada lahayn. Katrina Kaif, Ranbir Kapoor, Deepika Padukone. Ranbir Kapoor iyo Deepika Padukone way kulmeen, waxayna noqdeen saaxiibo isku fiican. Kadibna jacayl ayaa dhex maray bilowgii shaqadooda, laakiin lamaanaha ayaa kala haray 2 sano kadib markii Deepika ay ogaatay in Casanova of Bollywood ama Shabeel Naagoodka Bollywoodka Ranbir uu qiyaameeyay isaga oo xiriir la samaystay Katrina Kaif. Xitaa Ranbir wuxuu qirtay inuu qiyaameeyay Deepika. Shahid Kapoor, Kareena Kapoor, Saif Ali Khan. Markii ay saaxiibo ahaayeen, Shahid Kapoor iyo Kareena Kapoor waxay noqdeen kuwo jacayl wadaaga, laakiin muddo yar kadib xiriirkoodii wuxuu bilaabay inuu wajaho dhibaatooyin. Dhacdadii ugu dambeysay ayaa timid markii la sheegay in Kareena iyo Saif Ali Khan ay waqti aad u badan wada qaateen oo ay isdhaafsadeen sheeko markii ay sameynayeen filimkoodii Tasha. Waxyar kadib, Kareena waxay soo afjartay xiriirkeedii ay la lahayd Shahid Kapoor, waxayna jacayl ka dhex heshay Saif Ali Khan. Herman Biwaja, Priyanka Chopra. Filimka Love Story 250 ayay wada iibsadeen Priyanka Chopra iyo Herman Biwaja, laakiin filimku wuxuu noqday flop. Sidoo kale xiriirkoodii halkaas ayuu ku dhammaaday. Kadib waxay ay xiriir la yeelatay Shahid Kapoor inta lagu guda jiray filimkii ay wada dhigeen ee Kaminai, laakiin xiriirkoodii ma noqonin mid sii waara oo way ay kala hareen. Suzanne Khan, Hrithik Roshan, Barbara Mori. Mar qura ayaa la maqlay waxaa isfuray Hrithik Roshan iyo xaaskiisii Suzanne Khan. Wixii xilligaasi ka dambeeyay waxaa la faafiyay warar kala duwan oo ku saabsan sababaha ay isku fureen Hrithik iyo Suzanne, laakiin lama helin war sugan oo la isku raacsan yahay. Marka laga reebay in khilaafkooda ku abtirsado filimka Hrithik la dhigay atriishada lagu magacaabo Barbara Mori, furiinka Hrithik iyo Suzanne mid lama filaan ayuu ahaa. Inkastoo dhowr jeer khilaafkoodu suuqa soo galay, laakiin xiriirka 17 sano oo soo jiitamayay kadib way kala tageen, waxaana sababta loo leexiyay in Suzanne Khan ka dambeysay. Sanadkii 2010 ayay ahayd markii nolosha Hrithik Roshan ay soo gashay xiddigta Barbara Mori oo waxay ka jishay filimkii Kaitis, iyadoo la sheegay in labada jilaa ay isfahmeen, laakiin warkaasi waxaa maseer ka qaaday Suzanne Khan oo xilligaasi ka tagtay guriga Hrithik degtana hotel, waxayna xaafadda u soo laabatay markii ay Barbara aaday Mexico. Warbaahinta Hindiya badankooda waxa ay qoreen in Hrithik Roshan iyo xaaskiisii Suzanne Khan ay ku kala tageen ay tahay madaxa atriishada Barbara. Intaas ayaan kusoo koobaya, la soco qaybta labaad. Balse inta aanan ka bixin ayliin la wadaago sheeko maseer ama hinaasaha ku saabsan, maadaama aan kasoo hadalnay jacaylka. Haweeney ayaa aragtay ninkeeda oo hurdada ku qoslaya. Inta ay kicisay ayay ku tiri, waryaa waa tuma naagta kaa qosol siisay. Ninkii inta uusan u jawaabin ayay u raacisay, ku noqo hurdada, dabadeedna u sheeg naagta xun in aad xaas leedahay.